السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada maantay waxaan idin wadaa cudur muddooyinkanba aad uga kacsan guud ahaan dalka gaar ahaan caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho kaasi oo inta badan kiisaskiisa la arko cudurkaasi wuxuu yahay xanuunka ay Soomaalidu u taqaano isnidaamiska ama loo yaqaano iskaabiyaska isnidaamisku waa cudur caan ah oo ku dhaca bulshada qaybaheeda kala duwan kaasi oo ay keento ilmo aragto ku nool dusha sare ee maqaarka ilma aragtidaasi oo gacanteeda dhigta dusha sare ee maqaarka kadibna halkaasi ay ku korto cudurkan isnidaamiska wuxuu caan ku yahay laguna garan og yahay nabro yar yar iyo cuncun aad u fara badan waxaa la qiyaasaa 130 milyan oo qof oo ku nool dunidan inay la nool yihiin cudurkan isnidaamiska ma sababto nadaafad darrada cudurkan isnidaamiska waxaa lagu kala qaadaa ama uu ku gudbaa si toos ah macnaheedu waxay tahay qofka qaba cudurka maqaarkiisa haddii uu taabto qof caafimaad qaba cudurka si toos ayuu u gudbin karaa sidoo kale wuxuu ku gudbi karaa cudurkan isnidaamiska in la wadaago dharka dadka tobalka khatar badan ay ku jiraan sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa cudurkan isnidaamiska iyadoo la wadaago gogasha haddaba maxaad ku garan kartaa cudurkan isnidaamiska cudurkan isnidaamiska wuxuu caan ku yahay laguna garo og yahay sidaan horeba isugu soo sheegnay nabro aad u yar iyo waliba cuncunkaasi oo u badan habeenkii xuquuqda joogtada ah ee qofka isnidaamiska qabaahi oo sameeynaayahay waxay keeni kartaa caabuqaasi maqaarka u keeni karaa inuu ku dhasho infection waxaa la arkaa inta badan in nabro aad u yar oo u eg xasaasiyadda ay ka soo baxaan maqaarka qofka kuwaasi oo leh cuncun aad u fara badan qofkuna uu bogayo xuquuqdiisa mararka qaar wuxuu yeeshaa maqaarku nabro aad u yar oo furuuca kuwaas oo u eg xasaasiyadda lehna cuncun aad u fara badan kaasi oo qofku u bogayo xuquuqdiisa waxaad arkaysaa dadka isnidaamiska qaba ayagoo aan iska dayi karin gacanta cudurkan isnidaamiska qaybo kala duwan ayuu dadka uga kala dhacaa caruurta wuxuu inta badan uga dhacaa madaxa wejiga qoorta calaacalaha iyo waliba cagta cudurkan isnidaamiska wuxuu dadka waaweyn uga dhacaa meelo ka duwan caruurta kuwaas oo ka mid yihiin xusullada shaqfalaha ama kilkilaha ibtanaaska caloosha barida xubnaha taranka ragga iyo waliba faraha dhexdeeda looga hortagi karaa cudurkan isnidaamiska ama iskaabiyaska habka ugu fudud ee looga hortagi karo cudurkan isnidaamiska waxa ay tahay in la daaweeyo qofka cudurka qaba iyo waliba dhammaan xubnaha kale ee qoyska ha qabeen cudurka ama yeysan qabin macnaheedu waxay tahay qof adow ku dhaco xaafada kamid ah isnidaamiska oo laga daaweeyo marihiisii ama gogashiisii qofka la wadaago qofkii laga daaweeyo qofkii kale sidii ayuu cudurka ku qaadi doonaa haddaba maadaama uu sidaas ku faafayo waxaa waajib ah markii qof ku dhaco xaafada kamid ah in dhammaan xubnaha qoyska laga daaweeyo cudurka haddii loo baahan yahay in la suuliyo haddaba haddaad isku aragtid calaamadahan waxaa aad muhiim u ah inaad la xiriirto dhakhtarka maqaarka ee kuugu dhow aad iyo aad ugu mahadsantihiin la socoshada barnaamijkeena haddaad meeshaan soo gaartay waan kaaga mahad celinayaa fadlan na taageer naguna dhiirigeli laagta sheerta followga iyo weliba subscribe-ka aad ayaad u mahadsan tahay la socoshadaada